xaruntan waxaa ka bartay quraanka diinta Allah ee buuray bartay iyo waxa kale walaaltinimada iyo caasiwaanimada inaa iska joojiyo inaa waalidkayga xaq igu leeyihiin waa arday magaciisa uu soo koobay Cabdi waxa uu ka mid yahay ardada halkan loo keenay barashada culuumta islaamka waxaana uu qayb ka yahay dhalinyaro la keenay xarunta dhaqan toosinta ee Anfac oo laga kala keenay dalalka Mareykanka, Sweden, Denmark, UK iyo qaybo ka tirsan Soomaaliya ujeedka halkan loo keenay ayaa ah dhaqan toosinta iyo barashada diinta islaamka washamsi waduhaha والقمر إذا تلاها سمع الله ayaa lagu baraa quraanka kariimka tafsiirka iyo maadooyinka kala duwan إلى وحوليه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما محيب يتساءلون اسويدينيا عن النبأ ور حق أي اسويدينيا العظيم ورك أوين الذي ورك هم أيقوا فيه دحيس مختلفون اسكو غلافسيين ورك اسكو غلافسيين ورك قيامة وركيدي وور وين واسكو غلافسيين كلا هكجوغان سيعلمون ويغان دونان ثم انت كدب كلا هكجوغان سيعلمون ويغان دونان قدال بك يغان دونان ألم نجعل ميانين الأرض رولك ميانا كيل مهادا قول ميانا كيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض dhalinyarada halkan dhaqan toosinta loo keenay ee ka kala yimid Ingiriiska iyo Mareykanka qaarkood waxa ay ka soo baxeen jaamacado iyo iskuulada dugsiyo sare oo ku yaala halkanna waxa loo keenay in la baro diinta islaamka waxbarashada meesha aan bartay wax badan aan ka faa'iiday markaan ku hor aan ku darsaday xigmado badan aan helaa markaan hurdo wax badan waan nastay markaan kaco waxyaalo badan ayaan kala ogaaday shaydaanka iyo bini'aadamka sida cadow isugu yihiin sida waalidka iyo caruurtiisa isugu baahan yihiin sida jannada iyo naarta si kala yihiin xumaanta iyo maxay ahaaday iyo wanaaga say ay opposite isugu yihiin wax walba ay waan fahmay alxamdulillaah rabbil caalamiin meeshan maalinta la keenay aad baa ugu xumaa inaa meeshan la keeno waana xanaaqsanaa waalidkeena aad ugu xanaaqsanaa hadda isbedel weyn dhacay hadda 2 bil meesha joogaa qalbigay uu soo degay ilaahay baa ku soo dhawaaday diinta bartaa quraanka bartaa xadiisya bartaa dhaqanka fiicana bartaa meeshan halka wuxuu ugu weyn oo ka faa'iido waxa waa dulqaadashada hadda koor dulqaadkayga yaraa waa iskoor ordi jiray qof oo dulqaad leh ma ahan hadda laakiin dulqaadkayga uu batay aniga meeshan waxa la keenay waxbarasho markaan yaraa dugsiga ahay meeshan wax ku bartaa la keenay meeshan waxa waa meel aad u wanaagsan Macallin Axmed waxa uu ka mid yahay howlwadeennada xaruntan waxa aan weydiiyay hanaanka ay u maraan waxbaridda dhalinyaradan qaarkood qurbaha laga keenay xaruntan waxaa lagu bartaa culumta sharciga noocyada kala duwan waxaana koow ka ah quraanka kariimka ardada la baraa tafsiirkiisa la baraa kadib axaadiista la baraa kadib tawxiidka la baraa kadib fiqiga la baraa marka waxaa la isugu soo ururiyaa jawaamicda sida mawaaciidka oo qofka bini'aadamka wuxuu ku kooban yahay ruux iyo jasad ayuu ku kooban yahay qofka bini'aadamka ah hooyo Sahra Maxamuud 2 caruur ah oo ay waalid u tahay ayaa halkan la keenay waxa aan weydiiyay waxa ku kalifay in halkan caruurteeda ay keento daroogada cuni jiray markii hore daroogada soo cunayaan keenay daroogada daaqaday ka baxday daroogada ma insha Allah waa fiican yahay sida hore iyo kibirka hore midna ma jirto soo fiican wada u shaqeystaa iskoolku dhigana waxa ay soo qadaa tara soo qaada ilkoor wada la arki jirinbo ka sokow baridda diinta islaamka iyo dhaqan toosinta halkan waxay hoy u tahay boqolaal dhalinyaro ah oo laga kala keenay qurbaha iyo qaybo ka tirsan Soomaaliya qolkan waxa uu ka mid yahay qolalka jiifka ah ee dhalinyarada
xaruntan anfac loo keenay dhaqan toosinta? xarunta dhaqan toosinta ee anfac ayaa sidoo kale waxa ay leedahay qayb u gaar ah dumarka. gabdho macallimiin ah ayaa maadooyinka iyo duruusta diiniga ah bara gabdhaha halkan loo keenay barashada diinta islaamka iyo dhaqan toosinta, waxaana laga kala keenay dalal kala duwan iyo qaybo ka tirsan Soomaaliya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. cali maxamuud nuur cali ganay waa mid ka mid ah aasaasayaasha xarunta dhaqan toosinta ee anfac. waxa aan weydiiyey waxa ku dhaliyay in xaruntan ay furaan. xarunta dhaqan toosinta ee anfac ayaa maanta noogu timideen si aad la socotaan baa soo aragteenba. xarunta waxaa loogu magacaabaa anfac. anfac sababta loogu biyahay waxaa weeyaan waxaynu doonaynaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala idmo inaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan inuu anfaco baan doonaynaa. waalidka inuu anfaco, caruurta halka la keenaya inuu anfaco, macallimiinta inuu anfaco, isbeddel dhab ah ay waalidiinta ay arkaan caruurta halkan keenayaan ayaan u bixin anfac. anfac intaana bixin ka hor waalidiin fara badan oo cabasho ah ayaa noo yimaadeen ayagoo markaa dhahaya waxaanu doonaynaa xarumo ka duwan xarumaha kale inaan naloo furo, taleex nagala furo ayaan doonaynaa. fikirka waan qaadanay, daladibad baa nagala soo wacay, waxaa durbadiiba noogu soo dhacday inaan furno xaruntan oo lagu magacaabo xarunta dhaqan toosinta anfac. kadib marka aan furnay waalidiin fara badan dalkii dibadda waa nala soo xiriireen, waana keensanay caruurtooda. alxamdulilah wayna anfaceen hadeertaan. xarumaha kale waxaa dareemaysaa waxaan uga duwanaha waxa weeyaan annagoo caruurta ma dilno, abusin ma samayno, waxaynu doonayna keliya inaan wax barno. haddii dil wax lagu toosinayo waalidka ayaa wax ku toosi lahaa. annagoo ma dilno, halkaa baan lanoo keenaa, qur-aankii baan barnaa, qur-aankii baan saarnaa, xadiidkii baan barnaa, tafsiirkii ayaan barnaa, tawxiidkaan barnaa, fiqinkaan barnaa, arbiciinka ayaa barnaa iyo riyaal saalixiin intaba, iyo wixii maado ah. maadii oo dhan oo dugsida lagu qaadanayo dhan halkan ayay ku wada baxaan. maalmaha khamiista jimcahana waxaan siinaa balooni ayaa halkaas ku cayaarsiinaa oo jirkooda ayaan dhisnaa. maalinta khamiis waxdii waa loo galaa, waxaa la siiyaa jir dhis ayaa la siiyaa, jirka loo dhisaa, macallin baa noo yimid jirka dhisa. isbuucii marba ayaa waxa u yimaada dhakhtar oo caafimaadkooda wada koontaroola dhammaantoodba. marka ma aha meel laysku maarata muxuu abwiis gareenaayo, laysku yasayo maaha, laysku qaraacayo maaha, laysku dilayo maaha. waa meel qofka alaala qofkii soo booqda uu arki kara wanaag aad iyo aad maarata u habboon. idinku wariyayaasha naftigeed aad baa u aragteen siday meesha u qurux badan tahay, nadiif maarata xagga nadaafadii aad maarata ugu horumarsan tahay. macallimiinta jooga wanaagooda waad aragteen. qofkii markaan aragno xataa inuu xanuunsan yahay qur'aan ayaanu saarnaa, culamaa noo jooga qur'aan baanu saarnaa, wixii toobin u baahno toobin baa micnaha maarata muxuu ahaa aan saarnaa. marka ilaah baa ku caafiyada dhammaantood. haddaba ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan la socodsiinayaa xaruntan la yidhaahdo xarunta dhaqan toosinta anfac ay ku taalo degmada Hodan, xaafadda Taleex kasta horjeedka masaajidka Ramadaan, inay waalidiinta meel walba joogaan u furan tahay. gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa, wayna soo booqan karaan, waanu imaan karaan. waxaana rajeynaya haddii yimaadaan inay meel lagu soo dhaweyn karo, macnaha maarata lagu rayaaqi karo oo aad u qurux badan arki doonaan. meeshana ay diin wanaagsan oo maaragtay sharaf leh ay ka qaadan doonaan. dad fara badan oo waalidiin ah ayaana la soo xiriiray oo macnaha maaragtay arday fara badan keeneen. ardaydii marka halkaa yimaadeen oo harka la keenay qaar ka mid waa la bixiyey, waayo wanaagii iyo sharaftii aan u samaynay ilaah baa wax toosiyey. anugu dadaalkeena baan lahayn. qaar baa baxaylka ka baxay ayagoo wanaagsan, salaadii yaqaana. marka hore waxaa lagu keenay macnaha maarata muxuu ayagoo qaad cunaya, taabuu macnaha maarata saaranaya. laakiin halka marka la keeno qur'aan la saaray, qur'aanka ay barteen tooseen, ee ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifis la baray, ilaahay subxaanahu wa taala wanaagtiis la baray, la tusay wanaagii diintu ay leedahay. kabacdi waxaa meeshaas ka dhacday in waalidiinta ay ku rayaaqeen ardayda oo wanaagsan ay baxeen. qaarkood macnaha waalidiinta baar u noqdeen. waalidiin fara badan aragno macnaha maarata caasi waalidiin oo halka marka la keenay ee durbida arkeen wanaagu iyo maarata bari waalidiinka ay arkeen oo loo akhriyay. kabacdi ay yiraahdeen fadlan hal loo wac waalidiinta si aan u raali geerin ee noo cafiyaan. marka meeshaan aad aragteen oo anfac la yiraahdo waa meel aad u qurux badan, waa meel wanaagsan.
dadkuna dadweynuhuna aad baan ugu soo dhaweynaynaa waa noo imaan kartaan xid walba subaxdii mar walba ayaan furanahay 24/7 meesha way furan tahay waana soo boqorta waa noo imaan kartaan waxaan rajeynaynaa insha Allah taala inaad ku rayaaqi doontaan meel walba aad joogtaan macnaha maaragtay soo boqon doontaan aasaaska xarunta dhaqan toosinta ee Anfac ayaa ku soo beegmaysa iyadoo sanad walba boqolaal qurba joog ah dalka ay dib ugu soo laabtaan.